سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدونك ويكد عذا إن قف بلا دنبيلة لغدقو ولبو حايكد عذا ودامada sheegtay inay cadaaladi ka jirto reer galbeedku waxay sheegtaan in ay haystaan qalabka lagu baalo dambiilayaasha tixraaca DNA-da ee si gaar ah u tababaran iyo kaamirooyin wadooyinka ku xiran arintan ku dhacday ninkan madowga ah ee Moses waa arintii igu yaabka badneed aan maqlo intaan mowduuceena gudaha u sii galin fadlan muuqaalkan like inoo saar sababta dhiirigelin bay inoo noqonaysaa iyo inaan hore u sii soconno subscribe-na hanaga iloobin ka waran haddii lagu yimaado oo lagu yiraahdo gabar baa waxa ay ku riyootay adoo kufsanaya ee inakeen dambiile ayaa tahay maxaa sameyn lahayd qisadeena aan bilowno gabar sarqaansaneed oo baar ka timaaday ayaa waxa ay tiraahday waxa ay kufsaday nin la yiraahdo LC Jackson haddana maalin kadib iyadoo isbitaalka ku jirta ayaa waxa ay tiri waxa aan xalay ku riyooday Moses oo i kufsanaya haddii ogow waariyada dhexdeeda Master Moses ayaa la soo qabtay waxa loo sheegay oo lagu yiri gabar baad kufsatay waliba maalin ka hor Moses ayaa yaabay oo waxa uu yiri war ciwaan khaldan baad soo gasheen waxa loo sheegay in gabari ay ku riyootay adoo kufsanaya Moses waxa uu beeniyay arinkaas waxa uuna sheegay in gabadhaasi uusan kufsan booliska waxa ay baareen DNA-diisa iyo qaybo dharkiisa ka mid ah laakiin aaway horumarka ay sheegaan reer galbeedka ay tiknoolajiyada ka gaareen ninkii Moses ahaa xabsiga ayaa loo taxaabay isaga oo halka ku soo qaatay sanado aad iyo aad u badan oo gaarayay 28 sano ka waran walaal haddii xorriyadda lagaaga qaado arin been ah ciil iyo xanaaq dartiis ayaad isku cuncuni lahayd waliba 28 sano markii Moses uu xabsiga ka soo baxay noloshiisa qaybtii ugu muhiimsaneedna ku soo qaatay xabsiga ayaa Master Jackson waxa uu qoray waraaqad isaga oo sheegaya in uu yahay ninka saxda ah ee habeenka gabadha kufsaday ninka maskiinka ah ee Mosesna khalad lagu xiray intaa waxa uu sii raacay Master Jackson in inantu markii hore ay raali ka ahayd aysan ahayn kufsi waayo kufsiga waxa la dhahaa in gabadha la khasbo laakiin waxa uu yiri iyada raali iga ahayd waxa uu sheegay in ay ka xanaajisay sidaa darteed ayuu wajiga uga garaacay booliskii tala ku cadaatay nin maskiin ah oo aan dambi lahayn ayay xireen waliba muddo 28 sano ah dadka madowga ah ee ku nool wadamada reer galbeedka dhibaato aad u weyn iyo faquuq joogto ah ayay la kulmaan gaar ahaan dalka Mareykanka waxaana u dambeysay dhacdadii ahayd ma neefsan karo ninka Moses ahaa bal muxuu ku xirnaa gabar ayaa kugu riyootay oo kaliya ogow waliga xusuusnow wallahi diinteena waa macaan tahay waana naxariis waayo ilaahay waa naga cafiyay wax walba oo riyada dhexdeeda aan ku arkeyno oo dambi ah xitaa haddii maanta oo dhan aan ilaahay iyo rasuulkiisa aan caayeyno riyada waxa aan ku sameeyno ilaahay waa naga cafiyay oo noo qaban maayo dambigaas laakiin gaalku garan maayo kana dambiile ah iyo kana dambi la'aan ah waayo sharci kala hagaaya ma haysto annaga waxaan haysanaa kitaabkeena quraanka ah iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam arintan kufsiga ah ee wadanka Mareykanka saacadiiba dad aad iyo aad u badan ayaa la kufsadaa laakiin warbaahinta way ka qariyaan caruurta da'doodu ay ka hooseyso 12 sano ee wadanka Mareykanka ku nool boqolkiiba 34 waa la kufsaday ardayda kollejyada dhigata boqolkiiba 10 ilaa 29 waa la kufsaday sanadkii 1998 waxaa Mareykanka gudihiisa lagu kufsaday in ka badan 17 milyan oo dumar ah xitaa waxaa la sheegaa in booliska laftirkooda la kufsado xaddi aad u badan sanadkiiba iska daa shacabka malaayiin Soomaaliyeed ayaa ku nool wadanka Mareykanka waxa aan u sheegayaa
in waalidiinta carruurtooda ay ka taxadaraan meesha ay cagta dhigayaan iyo dhaqdhaqaaq kasta ay samaynayaan, waayo waddanka waa gaalo, gaalkaana diin celinaysa ma jirto. maadaamaad adigu muslim tahay diintaada ayaa dhowraysaa, laakiin gaalkaanu diinba ma haysto, wuxuu doonuu samaynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.